safirkaaynu jecelno sokeyeena baatahay sumcad aad u weyn baa satiruu ku safirkaaynu jecelno sokeyeena baatahay سمعة دوينبا ستروا كسي سياسة حنبحو الله سيكرينو صوت قود الأمانين صومالي بسماتاي لسالوغ الباتاي يا سحام بحر الله سيريكينو صوت قولت القاغن صومالي بسماتاي لسالوغ الباتاي رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية عمر عبد الرشيد علي شرماركي iyo safiirka dawladda Soomaaliya fadhiya dalkani Kenya Jamaal Maxamed Xasan ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay dib u dayactir lagu sameeyo safaaradii hore ee dawladda Soomaaliya ay ku lahayd deegaanka Westlands ee magaalada Nairobi. dhagax dhigga safaaradan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ganacsato odayaal waxgarad culumaa u diin iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada. safiirka dawladda Soomaaliya oo fadhiya dalkani Kenya Jamaal Maxamed Xasan ayaa waxa uu mahad celiyay safiirkii ka horeeyay sidoo kale shaqaalaha safaaradda kuwaasi oo gacan ka geystay dib u soo celinta safaaradan oo in muddo gacanta ugu jirtay nin u dhashay dalka Hindiya. bismillaahir rahmaanir rahiim waxa maanta sharaf weyn oo ah dadana ummadda Soomaaliyeed ee Kenya ku dhaqan iyo ummadda Soomaaliya guud ahaan meel kasta joogaanba in ay maanta sharaf weyn oo tahay in safaaradeeni oo aad la socotaan taariikhdeeda dhulkan oo ahaa dhul hore loo dhacay dib loo soo celiyay maanta isugu halkan dib u dhisno marka waxaan rabaa inaan mahadnaqo dhammaan dadkii ka qayb qaatay dib u soo celinta safaaradda tan oo ugu horeeyaan safiirkii ugu horeeyay maxaa Ameerika shaqaalihii Cali Bagedi iyo dhammaan dadkii la soo wada shaqeeyay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ka qayb qaadatay oo ay ka mid ahaayeen shaqaalihii hore safaaraddii hore oo qaarkood loo xiray qaar loo dhibaateeyay dadkii looyradii dadka Soomaalida bulshada reer Kenya لما عدة كغيب قاتي دبسوا علين تسفاردن ما أنتوا حشرفيا إن هالكن الجوجان رجزاره جمهورية فدرال الصومالية وزيرو فدرال مدحونه مامل كجبلان حلبانو قرن حلبانو مامل قبلات جناح استدي الصومالية يكون ولد كينيا يدمان بالشوين الصومالية يكون ولد كينيا وحالك سوقنا مدمانتين إنه كغيب قادنا دبوديسك سفارد هذا مدة أيام ودني قرش هذا dad badan oo guddigan casta ayaan u sameynay guddiga ayaana gacanta ku haya hawsheedii dhawaan insha Allah waxaan isku daynaa dhamaystirno dhismaha safaaradda oo aan soo guurno bilaha soo socda sida la socotaan kharash badan baa baahan tahay dadaal badan baa baahan tahay waxaan rajaynayaa madaxda inay ka warqabaan dadaalka aan wadno dawladdu waxay contribution ka geysato dadka Soomaaliyeed in waxba hagran oo wax Allah wixii qaban karaan u qabtaan because meeshan waa meesha ummadda Soomaaliyeed looga adeegi doono ama santiin طيب بسم الله الرحمن الرحيم وبين استعان على امور الدين والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رئيس الوزراء iyo madaxda la socotay iyo dhamaan dadka horta ka soo qayb galay marka hore aad baan u salaamayaa ugu mahadcelinayo inta kadib waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo dadkii Soomaaliyeed ee ka shaqeeyay muddadii safaaraddu ay hawada ka maqnayd qaabkii loo soo celiyay iyo juhdigii badnaa la geliyay waxay mudayn in la xuso waxaan u maleynayaa 1991 sagaashan iyo kowdii baan imid halkan oo safaaraddu markaa bilicdeeda iyo aad la yaabayso markaa bilowgii ugu horreysay lagaga tegey waad garanaysaa dhulkii hadda haystay asay tahay waa dhul Soomaaliyeed waxaan hadda ku taagannahay ma aha hadda dhulka Soomaalida iska leh meesha hadda aan cayaha ku hayno u malayn maayo hadda safiirku wuxuu ka calaacalayay in laga qayb qaatay in hadda Soomaali inay meeshaan dhisato hagaajisay ma waayisay waa la hagaajin karaa sababtoo inta guryaha ku bixinayna horumariska u bixinaynaaba ka badan baa dhisi karaysa marka waxaan leeyahay xaqaan waa guul taariikhi waana wax lagu faani karayo waxaan rajaynayaa sida safaaraddan ay u soo noqotay inay safaarado badan oo caalamka ku maqan u soo noqdaan
soomaalinimadii iyo istaageedii iyo wax badanna dadku ay ku xusuustaan ay noqon doonto wax taariikhi ah oo sida hadda safaaraddan loo dhagax dhigay intaasoo qofba majarafada yar u saarayay inaan soomaaliyana isugu wada tagno meelba majarafad yar haddaan saaro so wax badanoo isbeddela ma keeni doonto waxay la tahay safiirka iyo qolyaha halka ka shaqaynaya iyo cidda dhisaysana waxaan idiin rajaynayaa si khayr leh insha allahu waqtiga dambana inaan bal safaaradda soomaaliyeed iyadoo ay tahay intii la yimaado dadka socotada ku imanayana safaaradda laga soo dhaweeyey saasaan odhan lahaa aad baad u mahadsantihin wasaaraha kusoo dhaweynaya assalamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله runtii waxaan la qabaa safiirka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mahadnaqa runtii aanu celinayo dadkii juhdigooda ku bixiyay oo ugu horeeyay safiirka horeeto halka joogay qunsulkii horeeto hadda xijaato Allah naxariistay Edson على بقدي وأصنع كاسها قصة حليل dadkaas oo dhan iyo wixii safaaradda ka shaqeynaya ee runtii galiyay juhdi badan in safaaradda dhulkan dib loo soo cesho maadaama hadda la soo ceshay maanta ay taagan tahay runtii in dib loo dhiso waxaan rabaa inaan ummadda ku dhaho waxa horta iska leh safaaradda waa ummadda Soomaaliyeed weeye waxa loogu adeegayana waa iyaga marka waxaan rabaa annaga xukuumad ahaan oo ka qaadanayna hadii halkan baaq inaan uga diro ganacsatadii hadda lacagta aroorsanay inaan u mahad celiyo runtii inta kale hadda dhimanna in wax alla wixii lagu tabaruci karo lagu tabaruco annaga xukuumadaan oo ka qaadanayna laakiin waxa loo baahan yahay dalka kan mas'uuliyadiisa waxay saaran tahay qof kasta Soomaali ah qof kasta Soomaali ah inuu qayb ka qaato sidii loo soo celin lahaa wajigii dowladnimo ee ogtihiin yani lumay burburkii kadib waxa la rabaa safaaradaheena inay ka muuqdaan meelaha dhul badan oo aan leenahay jira safaarada kale jira hadda ayadana sidoo kale insha Allah u dhagax dhigi doono madaxweynaha waa ogtiin wuxuu soo dhagax dhigay safaaradii Abu Dhabi laga furin lahaa waxaan rajaynayaa kuwa Yurub sidoo kale in dib loo afro dowladnimadii maanta Soomaaliya ka loontaay ma jirto waxaan rabnaa ummadda inay kalsooni ka hesho haddii la yiraahdo inayna runtii garab istaagto dowladda safaaraddan runtii gacan gaar ah nasiibay ganacsada ka jooga waxay la tahay iyaga ku filan kara haddii ay runtii u soo jeestaan waan rajaynayaa inay soo jeestaan waxaan rabnaa insha Allah in si dhaqso ah aan dhameystirno adeegii bulsho ee runtii dadku halka u baahnaana ogtiin Soomaalida halka degan waa waxay ka mid tahay Soomaalida ugu tala badan ee dowladda degan marka waxaan u baahanahay inaan haddii la yiraahdo dadkan uga adeegno waa ogtiin qaxooti shalay waxaan tagay meesha ahayd Dadaab waxa ku nool 400 kun oo Soomaali ah dadka la rabo in dadkaasi ay isha ku hayaan waa safaaradda halka joogto marka runtii waana bogaadinayaa safaaradda iyo safiirka runtii hawsha ay hadda qabteen iyo waxa ay runtii ku talaabsanayaan hadda idinkuna waxaad ku baaqayaan runtii inaad gacan weysiisaan si dadkaas xagga naga jooga dadka inta jooga kulli Soomaali loo direelo adeegoodii noo aragti loo furo waa mahadsantihiin insha Allah waan ka wada celinayaa intii hadda ka geystay gacanta الرحمن الرحيم sidaad maanta aad arkaysaan waxaa la dhagax dhigay safaaraddii dowladda Soomaaliya ay ku leedahay dalkan Kenya waxaa dhagax dhigay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke runtii ninkan odayga dhinacayga taagan waxaa la yiraahdaa Fadxi waa ganacsade Soomaaliyeed oo halkan Kenya ka shaqeysta muddo hadda laga joogo dhowr bilood ayaan anigii isagii safiirkooda fariisanay safaaradda meesha ay degan tahay waa meel kira ah waxaan go'aan ku gaarnay nimayahow sideen safaaraddan ku dhisnaa gurigan waxaa ku baxay lacag adiga ugu badnaan $500,000 $500,000 xoolo badan maaha marka isaga ayaa wuxuu noo soo jeediyay inaan anagu isku tagno ganacsato wax laga keeno dawladdan waxay ku tari kartaa ay ku tarto muddo 3 bilood iyo bar gudahooda gurigan lagu dhiso marka runtii walaalkay Fadxi aad lagu mahad celinayaa waxaan leenahay Ilaahay ajir xasanad Allah ka siiyo xitaa wuxuu noo ballan qaaday in 10 milyan ay ugu horeyso guri lagu dhisaa inuu isaga baxsho marka waa dareemi kartaan go'aanka uu qaatay runtii wadaninimo runtii waan xusi doonaa taariikhdan xusi doonta Fadxudiin Cali Maxamed oo madax u ah guddiga ganacsatada Soomaaliyeed ee dib u dayactirka ku sameynaya safaaradda Soomaaliya ay ku lahayd magaalada Nairobi ayaa waxa uu ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dib u dhiska guriga Soomaaliyeed waxaana uu sheegay in lacag ilaa $1 milyan oo dollar ay ku bixi doonto isagoo sheegay inuu ku rajo weyn yahay in muddo 4 bilood gudahooda lagu soo gabagabayn doono sidoo kalena waxa goobta ka hadlay qaar ka mid ah ganacsatadii ka soo qayb gashay dhagax dhigga safaaradda Fadxudiin Cali Maxamed aa la yidhahaa ganacsada ah magaalada Nairobi aan deganahay arrinkaas waxaan ku soo qaadnay safiirka iyo qunsulka markii dambena waxaan ula tagnay ganacsatada magaalada inaan iska xilqaano oo safaaraddeena way meeshaan kulligeena ceeb nagu taadisaan u eg tahay aan dayactirkeeda ka wada qayb qaadano alxamdulillaah ilaahay waa nagu guuleeyay qaybtii koowaad oo ahayd in qiimeyn lagu soo sameeyo injineerada imaadaan kontraktarkii qofkii ka shaqeyn lahaa uu imaado
kulli heshiisyadaas hadda waan soo galnay haddii ilaahay yaraadna isbuucan waxaan rajaynaynaa inaan howsha sidii maantaba loo dhagax dhigay hore ugu sii socoto sidoo qunsulka sheegana dhowrka bilood soo socota yani inaan howshaas ku soo hagaajino oo safaaradda iyo qunsuliyadda iyo kulli inay halkan ahaadaan inaan dhicin meel kale oo kiro hadda kadib loo dhiibo dhulkan waa ujeedaan waa dhul aad u weyn oo aad u qiimo badan dadka dhulka yaqaan magaaladana garanayaan $12 milyan oo dhulkan ku fadhiya marka dawladeennii hore waxaan samaysay annaga waxaan looga baahan yahay marka kaalinteen inaan ka soo baxno aan inta dhiman aan dhammaystirno qofkii allaale qofka diyaar oo inaan ka qayb qaato inuu wax ku sadaqaysto mashruuca safaaraddu toos ula soo xiriiri karaa konsulka iyo safiirka waxa noo ah hogaanka noo haya ayagoo la soo xiriiraya waa loo sheegaya safaaradda accountka ee lacagta ku dhacaysa waa loo sheegaya markay shaqada dhammaatana xisaab xirka siday wax ku dhaceen kulli waa la keeni doonaa hal qof oo naga mid ah oo faa'iido ka helaya ma jirto ha yaraatee ganacsato dhan lacagtooda ay ku bixin doonaan waqtigooda ay gelin doonaan xataa ninka contractorka waa nin hindi asla shaqeynay waxaan ku balannay inuuna wax naga sameynin uusan faa'iido naga sameynin meelo kale aan ka wada shaqeynay marka waxaan dhahnay waa tan waa sadaqo u magaciisiyeyso marka kulligeena waxaana laga rabaa jaaliyadda gaar ahaan magaalada Nairobi degan waa jaaliyad xoog leh lacag badan haysato inay kulli iska xilqaamaan safaaradda la soo xiriiraan hadda awoodi karto 1,000 shilin iyo hadda awoodi karto 1 milyan oo shilin safaaradda la soo xiriir waa lagu sheegi doonaa account aadaan u mahadsantahay bismillah alxamdulillah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah jazakumullah khayr aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ra-iisul wasaaraha dhibaatakiisa iyo haddii la yidhaaho maamul goboleedka ra'iiskiisii axmed madoobe aad baan ugu faraxsannahay maatinkooda runtii dhagax dhiggan waa guul weyn oo maaragtay laga sii ambaqaadi doono insha allah annaga hadda annaha ganacsatadii safaaraddu ilaa intay furnayd halkan aan joognay waxaan umay 91 baa igu dambeysay iyadoo dhisan oo halkan aan xidhiirkii wax ka samaynaynay maalintaa guriga ninkii arko maantana arka runtii aad buu u garanayaa soomaalida meesha ay marayso annaga haddaan nahay ganacsatadii waxa weeyaan diyaar baan u nahay insha allahu inaan si fiican uga qayb qaadanno isuguna taagno dhismaha iyo dib u soo noolayntii safaaradda intii hadda joogteen runtii hawl fiican bay qabatay marar badanna waan kulannay diyaar baa marka loo yahay dawladdana waxaan ka rabnaa uun dhiirigelin iyo inay uun haddii la yidhaho hawshii la isla qabto si xagga uun fikirka iyo talada dawladda looga qaato safaaraddana maaragtay ay u hirgeliso hawshan waxaa u taagan hadda dad ganacsatayaala oo bilowgeedii diyaar u ah iyadoo oon weli lacag la bilaabin oon contribution la bilaabin inay jeebkooda ka sii bilaabaan waa diyaar loo yahay waanaad aragtaan oo waa la diyaariyey qaabkii oo maaragtay hawsha lagu bilaabi lahaa iyo systemkeedii shirkad in loo dhiibay hindidaas nimankaas hawsha loo dhiibay dad ganacsatayaalaana u taagan diyaarna oo inay waxoodana ku bixiyaan aad iyo aadna waad u mahadsantihiin waxaana soo dhawaynaynaa ra-iisul wasaaraha iyo wafdiga ballaadhan ee la socda waxaan uga mahad celinaynaa oo shirka shalay ay ku soo qabteen dhadhaab runtii waa waxaasoo dhan waa wax ruuxda ama damiirka soomaalida dib u soo celinaya weeye dadkaasina waa sidaa uu ra-iisul wasaaruhu sheegay innagoon bayna sugayaan waxqabad iyo ka warhayn taana waxaa weeya waxaa uun hoggaan noogu noqon sida aan rajaynayna safaaradda meeshan joogta wixii ay naga soo dalbatay ee la kari karana waan qabanaynaa waana runtii waxaad moodaa in tubtii lagu soo dhacdo la dareemayo soomaali in dib loo soo nooleeyo dib loo isu abaabulo wax la wada qabsado tijaarta iyo ganacsatayaalka ugu badanna soomaali kolkayna halkan weeye marka haddaaba guri yar oo dhowr boqol oo kun ku baxaysa aan dhisan weynay runtii annaga ceeb caariya nagu tahay taana waan ka gudubnay oo insha allahu waa diyaar baanu nahay waan wixii kanaga waan qabanaynaa hawsha waan qabsanaynaa dawladdana talo umaan ka rabnaa iyo fikir safaaraddaana noo dhaxaynaysa insha allahu aadna waa mahadsantihiin asalaamu calaykum safiirkaynu jecelno sukayaheena baa tahay sumcad aad u weyn baa satiruu ku siiyey